السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابي سو دوادا muuqaalkeenan maanta waxaan kaga hadlaynaa calaamadaha lagu garto xaasidnimada. ugu horeyn waxaan isweydiinaynaa laba su'aalood oo kala ah: waa maxay xaasid? maxaase lagu gartaa shaqsiga xaasidka ah? xaasidku waa waxa qofka qalbigiisa ku jira oo ku kalifaya ama ku khasbaya inuu dadka xasdo si walba oo ay ahaataba, isagoon inaba waxba ka faa'iideyn. qofka xaasidka ah waxaa lagu gartaa waa qof mar walba dibandaabyo badan, waana mid had iyo jeer ka shaqeeya gadaashaada si uu u furo xarig kasta oo aad xirtay oo maslaxadaada ku jirto. qofka xaasidka ah waa mid xan badan, mar walba waxa uu wax ka sheegaa xumaanta dadka kale. qofka xaasidka ah waa qof ay ka maqan tahay xasiloonida iyo farxadda, oo aaminsan in wax kasta oo wanaagsan Allah subxaanahu wa tacaala uu ka qaaday, isagoo mar walbana maankiisa ku haya dadka kale wanaagooda. qofka xaasidka ah waa qof ka xumaada wanaagga iyo farxadda waxtarka leh marka laga hadlayo, waana qof ku soo booda si uu si khaldan uga dhigo fakarka iyo wanaaggaas. qofka xaasidka ah waa qof had iyo jeer la saaxiib ah murugo iyo walbahaar, waana ruux ka xumaada horumarka aad gaarto. ma ogtahay mase maqashay in dembigii ugu horeeyay ee Allah subxaanahu wa tacaala uu caasiyo xagga samada uu ahaa xasad, waana ibliis oo xasday aadam calayhi salaam inuu u sujuudo. ma ogtahay dembigii ugu horeeyay ee Allah lagu caasiyo dhulka inuu ahaa xasad, waana wiilkii nebi aadam calayhi salaam oo xasday walaalkiisa. adigaagan daawanaya muuqaalkan walaalo, waxaan ku leeyahay ka fogow, iskana ilaali xaasidnimada. ku farax wax walba oo wanaagsan oo ay dadku haystaan. dheh maasha Allah, si adigana Allah subxaanahu wa tacaala uu kuu siiyo nimco iyo barako. insha Allah waa inoo iyo muuqaalkeena xiga.